halkani waa Soomaali Weyn Production qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame waxay isku hayaan arrimaha gargaarka bini aadamnimada ee Soomaaliya waxaana jira eedeymo waaweyn oo musuqmaasuq oo loo jeedinayo ergeyga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay abaaraha Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur iyadoo gabi ahaanba la dhimay awoodiisa isla markaana lagu daray guddi xubnaha hogaaminayaahi ay isla afgarteen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre إذا لو تشيد يا عبد الرحمن عبد الشكور يجوابها ووصل لي حفيز كرئيس الوزراء حمزة يعني دي سوق بنتونا بيش اللسان أيو كسو تشيد مختار روبو ضياش وذا كسو كان مقالة بيدبنا وحي صارين ورلا مفيلانا هو كواد المجعابيستي مختار روبو ولا قد يجي وزير كترسان حكومة فدرال الكصومالية وحي سيدو كلا آن عد كقاتين مشرح نمدي يسد ولد قبلات ككونفرق البيت صومالية يسيدو كلا قاب كأي وجهيان لفتكرين أيان هالكاس يقول للتابن كروكو جاري ويليام روتو madaxweynaha la doortay ee wadanka Kenya saaxiibadiisa siyaasaddu waxay goor horeba soo saareen in wax walba oo la xiriira heshiis uu galay Uhuru Kenyatta ka hor maalmihii doorashada waxba kama jiraan xukuumaddu ay ka soo qaadi doonto isla markaana isbedel weyn lagu sameyn doono wax walba oo la xiriira heshiisyadii la galay tan oo ka dhigan mar kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo William Ruto in ay gali doonaan heshiisyo siyaasadeed oo wax badan laga bedeli doono heshiisyadii ugu dambeeyay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu jaadka ku fasaxay beesha abgalna waxay isku diidan yihiin cid noqonaysa gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana la kulmay culayskii ugu weynaa oo gudaha beeshiisa qaybtood ayaana la hadlay warbaahinta iyagoo eedo waaweyn u jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sheegayna in uu u kala eexanayo gudaha beesha abgaal Soomaali weyn daa warkooda sida ay sheegeen qodobadaas aad ku daawan doontaan warkayagee aan ku bilaabo رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa gabi ahaanba dhimay awooda ergeyga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay arrimaha abaaraha Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre waxa uu sheegay tillaabadani inay tahay mid isla xisaabtana oo xukuumaddu maalmihii ugu dambeeyay ee awoodda saaraysay رئيسul wasaaraha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay inay qaadayaan tillaabooyin kale oo la xiriira isla xisaabtanka waxaana farta lagu fiiqay in xafiiska ergeyga abaaraha Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame musuqmaasuq baa xal uu ka jiro gudaha magaalada Muqdisho ayaa lagu arkayaa deeqihii ugu dambeeyay ee ka yimid dawladda Imaaraadka iyo dawlado kale oo lagu kala gadanayo gudaha magaalada caasimadda gobolada ayaa sidoo kale la soo wariyay durba inay gaareen iyaga oo si toos ah dadkii loogu talagalay in loogu deeqo looga iibsanayo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa waxa dhawaan eeda u jeediyay xubno kamid ah safiirada wadamada Carabeed iyagoo sheegay inaysan aqbali karin qaabka aan hubanti la'aanta ah ee uu wax u wado Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa mar xilligaas wixii ka dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si toos ah madaxtooyada ugu tagay waxa uu ka qortay warqad uu ku sheegay in madaxweynuhu kula hadlayo guud ahaanba hogaamiyaasha Carabta warqadahan ayuuna u qaybinayay saraakiisha kala duwan ee hogaamisa jaamacadda Carabta dawladaha Carabta iyo sidoo kale ururka Islaamka isagoo sheegay inuu u wado dhambaal kaga yimid madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo lagu sheegayo wadanka in macluul ay ka jirto garbistaag goodan ay u baahan yihiin dhawaan maruu markab ku soo xirtay dekedda magaalada Muqdisho isla markaana uu ka yimid dankaasi wadanka Imaaraadka Carabta oo siday waxyaabo yaryar iyo agabyo loogu talagalay in loogu gurmado dadka abaaruhu ay saameeyeen waxa isku qabsaday ergeyga gargaarka Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame wasaaradda arrimaha gudaha oo hogaamiyo Axmed Macalin Fiqi iyo xubno kale oo wasiiraha oo gabi ahaanba doonayay mid walba in dhankiisa uu la wareego agabkan kala duwan ee loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen رئيسul wasaare Xamse Cabdi Barre oo soo farageliyay khilaafka kadib markii markabkan dhowr maalmood uu taagnaa dekedda magaalada Muqdisho ayaa dalbaday in lagu wadeejiyo wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ee hogaamiyo Axmed Macalin Fiqi arrinkan waxa ka carooday Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ergeyga arrimaha abaaraha u qaabilsan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud balse rئيسul wasaare Xamse ayaa qaaday tallaabo caradiisa uga jawaabayo waxaanu isugu yeeray golaha wasiirada iyadoo gabi ahaanba la dhimay awoodda Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame isla markaana lagu daray guddiga abaaraha oo uusan ka ahayn gudoomiye ku xigeen iyo xogaye toona isla markaana uu yahay xubin aan saameyn badan lahayn oo guddigaasi ka tirsan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame xubno ka agdhow waxay sheegayaan in laga yaabo in uu jagadaasi baneeyo isla markaana warqad cabasho u gudbiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud beesha leysaan ee ka soo jeeda Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo hadda laga dhigay wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya loona dhiibay wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa magaalada Baydhabo waxay ku cadeeyeen mowqifkooda ku aadan magacaabista Roobo beeshan waxay sheegeen in marnaba aysan garab istaagi doonin Mukhtaar Roobo ka odayaal ahaan isla markaana uu wajahayo culayso kala duwan iyo eeda kaga imaanaya guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed
odayaashan dhaqanku waxay sheegeen in Mukhtaar Roobow dhowr iyo 10kii sano ee ugu dambeeyay uu watay dhalinyaro ka soo jeeda beesha Laysaan isla markaana uu ku baabi'iyay dagaaladii dhacayay iyagoo sheegay tan iyo xilligaasi wax garowshiya oo la xiriira dhalinyaradaasi baaba'day iyo waxyaabaha ay ku dhinteen inaysan ka hayn Mukhtaar Roobow odayaashan waxay sidoo kale soo hadal qaadeen haddii uu noqonayo musharax ka tirsan xubnaha u tartamaya hogaaminta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya odayaashan waxay sheegeen marnaba inaysan aqbali doonin inuu u tartamo hogaaminta dowlad goboleedkaasi isla markaana ay u soo jeedinayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed inuusan aqbalin isaga iyo xubnaha kale ee dhibaatada ku ah dowlad goboleedkaasi inay ka soo degaan magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe iyo guud ahaanba dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya odayaashan waxay ku farta ku fiiqeen xubno ka mid ah saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo ka dalbaday madaxweynaha jamhuuriyadda inuu san burburin dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qaar ka mid ah saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxay ku eedeeyeen in ay door bidayaan ama doonayaan in saameyn ay ku yeeshaan dowlad goboleedkaasi iyagoo sheegay inaysan ka odayaal dhaqan ahaan iyo guud ahaanba bulshada reer Koonfur Galbeed aqbali doonin in la dumiyo dowlad goboleedkooda arrinkan ayaa u muuqda madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen inuu ku gaaray guul weyn isla markaana dadka deegaankaasi ay hadda isaga garab taagan yihiin qaar ka mid ah saaxiibada aadka ugu agdhow madaxweynaha la doortay ee wadanka Kenya William Ruto waxay hoosta ka xariiqeen in gabi ahaanba aan la aqbali doonin bilihii ugu dambeeyay arrimaha doorashada la qaban qaabinayay heshiisyadii kala duwanaa ee uu galay madaxweynahii hore ee wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo aan wali xilka wareejin madaxweynaha la doortay ee wadanka Kenya William Ruto waxa uu sheegay dib u habeyn inuu ku sameyn doono gabi ahaanba heshiisyadii ugu dambeeyay ee uu galay Uhuru Kenyatta isla markaana heshiisyadaasi ay noqon doonaan kuwa baaritaano rasmi lagu sameeyo madaxweyne William Ruto waxa uu sheegay in heshiisyadaasi aan la aqbali karin maadaama laga lahaa dana siyaasadeed isla markaana madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku galay ololaha siyaasadda uu ku garab istaagay Raila Odinga oo laga guuleystay waxaana William Ruto uu sheegay in marnaba aysan aqbali doonin heshiisyadaasi inay dhaqangal noqdaan liiskaasi waxa ka soo dhex muuqday heshiiskii ay wada galeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta waxaana heshiiskaasi u muuqdaa mid wax badan laga bedeli doono isla markaana dib u habeyn lagu sameyn doono arrintani waa rabaaxa siyaasadeed oo ku dhacaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ay ugu baaqayeen inuusan si toos ah heshiis ula galin Uhuru Kenyatta oo maalmo kooban ay uga harsan yihiin doorashada iyo waqtigiisa hogaaminta waxaase hadda uu baranayaa cashar siyaasadeed oo la xiriirta hogaaminta iyo isbedelada ka dhici kara dalalka kala duwan beesha Abgaalna waxay si toos ah iskugu haystaan cidda noqonaysa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah Muqdisho kulan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la yeeshay odayaasha dhaqanka ee beeshaasi ayaa ku soo dhamaaday isafgaranwa iyo isfahanwa waxaana qayb ka mid ah odayaasha oo arkay inuu gacan bidixaynayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud warbaahinta ay u sheegeen in madaxweynuhu uu si toos ah ula safan yahay garab isaga u dhow isla markaana uu doonayo inay noqdaan mas'uuliyiinta iyo maamulka gobolka Banaadir qaar ka mid ah beelaha ayaa sheegay sanadihii ugu dambeeyay inaysan cagta saarin hogaaminta gobolka Banaadir xaqna ay u leeyihiin ayna u sheegeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud balse ay dareemayaan in madaxweynuhu uusan ku jacsanayn soo jeedintooda isla markaana uu dhagaha ka fureysanayo wax walba oo la xiriira dalabaadkooda odayaashan waxay sheegeen inay qaadi doonaan tilaabo walba oo ay kaga hortagayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha gobolka Banaadir uu siiyay cid isagu si gooniyo u danaynayo waxayna sheegeen inay door bidayaan in madaxweynuhu iyaga dhexda u dhigo gudoomiyaha gobolka Banaadir odayaasha